السلام عليكم ولا سودو maanta insha Allah ta'ala waxaynu bilaawi doonaa haduu Eebbe subhanahu wa ta'ala inaga ogolaado course cusub oo aynu ku baro doono luqadda JavaScript. Course-kan waxaynu si deeply si qoto dheer isku baro doonaa JavaScript waxay tahay adigoo fahansan yaqaana xirfad u leh hadii aad la dhameeyso course-kan ayaad ka tagi doontaa halkan. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Eebbihiina abuurtay oo runtii inoo suurtageliyay inuu maantay si nabad leh course-kan ku bilaawno. Sidoo kale tan course-kan sidii ka horeeyay ee si nabad leh inuu soo dhamaadaan. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo asxaabta inuu xiran oo adiga aad ka mid tahay oo runtii inoo ah garab. waxaan course-kan maasantiin kun iyo jeer. Waxaan rabaa inaan wax yar idin xasuusiyo ama courses-ka aynu channel-ka hore u soo gelin. Waxaa ka mid ah Illustrator-ka, Photoshop, sidoo kale HTML iyo CSS, sidoo kale database oo anagu ku isticmaalayna SQL language. Intaanu course available ay ku yihiin channel-ka wax fiican laga rabo ka faa'iideyso waa fursad qaali ah waa fursad dahabi ah. aynu soo laabano cashirka maantay insha Allah ta'ala course-kan inuu soo bilaawi doono iskala jaan qaadi doono halkan waxaan filaynaa insha Allah ta'ala inuu si nabad leh inuu soo gabagabo. waxaanu maantay course-kan ku baro doonaa introduction JavaScript iyo software-ka aynu ku isticmaalayno luqaddan JavaScript oo ah VS Code. waxaynu fahmi doonaa sida loo soo dego isla software-kan. marka horeeto waa maxay JavaScript? waxaynu isla arki doonaa JavaScript waxa ay tahay. marka horeeto waa maxay JavaScript? sidoo kale JavaScript maxay qabataa? what to do JavaScript? JavaScript is world's most popular programming language. waa luqad ugu caansan dunida programming languages. sidaan la socono programming languageska waxay ku kala jiraan levels ay ku kala caansan yihiin ku kala tayo badan yihiin. marka JavaScript waa luqad ugu caansan programming languages. sidoo kale JavaScript waxaa loo isticmaalaa la shaqeysaa web applications websites. JavaScript wax kale taa u qabin waa luqad related la shaqeyso loo isticmaalo webska web applications ama websites-ka. sidoo kale JavaScript waxa ay wax ka bedeshaa HTML content. waxay awood u leedahay HTML content-geeda inaad dhex gasho inaad wax ka bedeltid saarabtid aad ka dhigatid. marka waa luqad runtii awood badan leh. JavaScript sidoo kale waa interactive waxa la dhahaa qofka user-ka inuu la falgeli karo website-ka. tusaale ahaan markii aad gasho Google-ka ama Facebook ama YouTube-ka oo aad wax sirji gareynayso xog raadinayso xogtii ku soo baxdo xogtii sorti gareysato waxaasoo dhan waxaad la falgeli haysaa elementiya hore loo diyaariyay. marka waxay ka caawin doontaa inaad la falgeli kartid website-ka ama web browser-ka aad isticmaalaysid. marka waa luqad ku suurto gelinayso interactive inaad la falgashid isticmaashid waxa saartid aad ka yeelatid elementiska ama website-ka ama sidoo kale application-ka aad markaa isticmaalaysid. waxaynu fahmi doonaa JavaScript waxa ay qabato. JavaScript what to do maxay qabataa? waa su'aal muhiim. JavaScript marka koowaad awoodeeda waxa kamid ah waxa ay qabato manipulate HTML element. waxay wax ka bedeshaa awood u leedahay inay dhex gasho HTML-ka ay wax ka bedesho dabeecadeeda. JavaScript waxaynu arki doonaa laba sawir oo concept-kan ku soo goobi doono hakada digin ku tusi doona. sidoo kale handle event waxay awood u leedahay inay events ku soo darto website-kana. sidoo kale waxa ay sameysaa interactive web application. sidoo kale waxaynu arki doonaa software-ka aynu ku isticmaali lahaynay luqadan VS Code si loo soo dego waan arki doonaa. inta aynu u gudagelin sida loo soo dego VS Code waxaan rabaa laba sawir oo ku soo koobi doono waxa ay tahay JavaScript si complete inaan ku tuso. sawirka koowaad sida u jeedno hore waxaynu u soo baranay HTML waxay ka shaqeysaa content ama structure. qaab dhismeedka website-ku uu yeelanayo waxa qaabilsan waa HTML. sidoo kale CSS waxay ka shaqeysaa style-ka. structure-kan la soo dhisay in ay style-kiisa ay qurxido ayay shaqadeeda tahay. halka JavaScript ay tahay behavior inay dabeecadaha ka bedesho. ama sidoo kale waxaad dhihi kartaa HTML shaqadeeda waxay tahay structure qolfoofta website-ka inuu dhisto CSS styling
inay inoo qurxido qolfooftii JavaScript halkay tahay functionality inay ka shaqaysiido website-kan website shaqeynaya haddaad rabtid dynamic ah waa inaad ku dirto website-kaada luqadda loo yaqaano JavaScript sidoo kale waxaa ogaataa website-ka lagu dhisaa labadan waa static balse markii lagu daro JavaScript wuxuu noqon doonaa dynamic functionality mid shaqeynayo marka labadaas sawir waxay kusoo goobayaan waxay tahay JavaScript iyo awoodda leedahay waxaan arki doonaa si la soo dego software-ka waxaynu tagi doonaa marka horeeto Chrome-ka waxaynu ku qori doonaa VS Code marka qorno waxay noo soo bixi doonaa website-ka VS Code waxaynu ku dooran doonaa linkan download ah linkaas dooro markaad dooratid wuxuu si toos ku dejin doonaa interface-kan waxaynu naga degsan doonaa window haddii isticmaalaysan Mac degso hadda anaga waxaynu isticmaalaynaa computerkan window download markaan dhahno taabanabo si automatic ah waxa la rabaa inuu galo qaybta download-iska ana hore u soo degsaday kana waa furi doontaa kadib wuxuu ku gali doonaa qaybta download-iska kadib install ay dhigi doontaa hadda ani hore ayaan u soo degsaday mar labaad soo dejiyo mar rabo marka waxaan filayaa introduction-ka course-kan aad kaga bootay video-gan yar waxaan kaa codsanayaa haddii aad ka mid tahay asxaabta inagu cusub inaad nagu soo biirto waxaan kuu ballan qaadi doonaa insha allahu tacaala course-kan si deeply ah inaan kuu baro si qoto dheer isaga gudaha ayaan u geli doonaa faahfaahinno badan ayaan ka bixi doonaa example iyo tusaalooyin ayaan ka bixi doonaa shaqada 99.9% waa code waa practical taasi la soco soo diyaarso laptop-gaada software-kan kusoo shubo kadib waan isla jaan qaadi doonaa waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته